بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذ الهانتين باخيارتا هودا نغلا سعوتاي كسو دوادا داودايال warbixina aan idinkula wadaagayno hadduu alla idmo wararkii u dambeeyey howlgallada ballaaran ee ay samaynayaan ciidamada liyu booliska deegaanka Soomaalida kuwaasi oo sheegay in howlgallo ballaaran ay ka samaynayaan deegaana ku teedsan xadka iyo waliba dhinaca gudaha ee dalka Soomaaliya daawadayaal warkan hadduu alla idmo waxaynu idinkula wadaagaynaa wararkii u dambeeyay arrimahaasi ku aadana taliyayaal sarsare oo kamid ah ciidamada liyu booliska oo ka hadlay warbixina ka soo saaray dagaalkii ay kula galeen kooxo ka tirsan al-shabaab agagaarka degmada Feyrfeyr ee gobolka Shabeelle iyo gobolka Afdheer ilaa iyo hadda waxa ka soconaya iyo ciidamada Mareykanka oo iyaguna war ka soo saaray dagaalka xooggan ee al-shabaab ay ku qaadeen dalkaasi Itoobiya ama deegaanka Soomaalida qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan warkeenan taariikhdu waa 29 bisha 7 2022 waana habeenimo jumco ah ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii ugu horreyn baynu ku bilowno ciidamada liyu booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa howlgallo aad u ballaaran sii wada kuwaasi oo isku fidiyey xadka deegaanka Soomaalida uu la wadaago dhulka ama dalka Soomaaliya waxaana ay sheegeen inay ku raad joogaan kooxo ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina ka agdhow xadka ay wadaagaan deegaanka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya war lagu daabacay barta ciidamada xoogga gaarka ee deegaanka Soomaalida liyu booliska ayaa waxa ay ku yiraahdeen geesiyada ciidanka xoogga gaarka ah ee DDS ayaa howlgallo lagaga tirtirayo argagixisada ka wada xadka gobolada Shabeelle Qorraxay iyo Doolo ay la wadaagaan dalka Soomaaliya guutada saddexaad ee ciidanka oo uu hogaaminayo sareeye guuto Cabdiraxmaan Axmed Nuur ayaa ku sii guda jira howlgal ay ku sii baacsanayaan al-shabaabta oo ay kaga sifaynayaan xuduudka aynu la wadaagna dalka Soomaaliya ciidankani ayaa guul taariikhiya ka soo hooyay dagaalkii u dambeeyay ee al-shabaab ay kula galeen laasqurun waxa ayna jabiyeen gebi ahaanba kooxihii duulaanka soo qaaday iyaga oo ilaa iyo hadda sii baacsanaya sidaasi ayay ku dhaheen qoraal ay soo saareen ciidamada liyu booliska deegaanka Soomaalida gobolka Afdheer iyadana howlgallo aad u ballaaran ayaa la sheegay in uu ilaa iyo hadda ka soconayo shaki badan ayaana laga qabaa in ay kooxo ka tirsan al-shabaab ay baaqi ku yihiin gobolkaasi ama ay si uun uga agdhow yihiin ilaa iyo haddana shakhsiyaad la sheegay inay al-shabaab ka tirsan yihiin ayaa la soo qabanaya maanta ugu dambeysay 2 ayaa laga soo qabtay gobolkaasi Afdheer howlgallo ballaaran oo geeda ayaana ka soconaya gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida ciidamada ayaana isku ballaariyay waxaana ciidamada caawinaya dadka shacabka ee ku nool gobolkaasi daawadayaal warbixin ay soo saareen saraakiisha ciidamada liyu booliska oo wata sawirro iyo muuqaallo ku aadan howlgalladooda ayaynu idinla wadaagaynaa balse inta aynaan u gudbin aynu fiirino hadduu alla idmo war ay soo saartay dowladda Mareykanka ama ciidamada dalka Mareykanka ee Afrika oo markii ugu horreysay ka hadlaya dagaalada ka dhacay deegaanka Soomaalida haddii aynu ku soconno militariga dalka Mareykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadlay duulaanka ay kooxda al-shabaab ku qaadeen gobolka Soomaalida ee Itoobiya halkaasi oo ay ka dagaalamayeen muddo ku dhow 10 maalmood amaba ay ka dagaalamayaan ilaa iyo hadda agagaarka iyada oo ciidamada liyu booliska deegaanka Soomaalida ay xadka sheegeen inay ku baacsanayaan kooxo ka tirsan al-shabaab taliyaha taliska Africom ee ciidanka Mareykanka General Stephen Thousand ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Itoobiya ay inta badan xakameeyeen weerarka al-shabaab balse ay kooxda al-shabaab awood u yeelatay inay ilaa iyo 150 kilomitir ay gudaha u galaan Itoobiya Thousand ayaa waxa uu intaasi ku daray in weerarka uusan ahayn mid soo booda ah oo hal mar dhacay balse uu qayb ka yahay isku day ay kooxdani sare ugu qaadayso weeraradeeda ka baxsan xuduudaha Soomaaliya taliyaha Africom ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda al-shabaab ay sii xoogaysatay 18 bilood ee ciidamada Mareykanka ay ka maqnaayeen Soomaaliya waxa ayna noqdeen kuwa sidii hore ka ballaaran ka xoogan kana geesisan hadda waa in aynu ka hortagnaa hindisayaashooda ayuu yiri
ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya oo gaarayay ilaa iyo 700 ayaa waxaa Soomaaliya looga saaray amar bishii Janaayo ee sanadii 2020 ka soo baxay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. hase yeeshee madaxweyne Joe Biden ayaa 16 bishii May aynu soo dhaafnay amray in ciidankaasi dib loogu soo celinayo gudaha Soomaaliya maalin kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. dagaalka Al-Shabaab ay 24 bishii May ay ku galeen Itoobiya ayaa ahaa midkii ugu horeeyay ee noociisa ee ay kooxdani si buuxda uga talowda xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya isla markaasina halkaasi ay uga dagaalanto. intaasi haddii daawadayaal aynu ku dhaafno warbixinta ay ciidamada Maraykanka ee fadhigooda ugu weyni u yahay dalka Djibouti ay soo saareen ciidamada liyu booliska ayaa waxa ay ka hadleen howlgallo ballaaran oo ciidamadu ay ka wadaan xuduudka Soomaaliya howlgalladii lagu baacsanayay Al-Shabaab iyo warbixinno ay soo saareen isla markaasina iyagu ay tabinayaan ayaa sida tan guulaha ay ka gaadheen ciidanka xogga gaarka dagaalada lagu ciribtirayo naflacaaridka Al-Qushaash ee ku soo qaaday deegaanka dagaaladii naflacaaridnimada ahaa ee ay isku dayeen inay ku soo galaan gudaha deegaanka dagaaladaasi oo ahaa kuwa looga gacan sareeyay laguna jabiyay cadawga Al-Qushaash ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah xuduudada aynu la wadaagno dalka Soomaaliya ee gobolka Afdheer iyo Laasqurun oo ah goob wax yar u jirta degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle. dagaalkaasi ka dhacay Laasqurun ayaa ahaa dagaalkii ugu ballaanaa ee khasaaraha ugu weyn ee ciribtirka loogu geystay cadawga Al-Qushaash. haddaba mar aan ku sugnay degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle ee goobta dagaalkaasi uu ka dhacay wax yar u jira ayaa waxaa warbixin guud laga siiyey saraakiishii iyagu guulahaasi gacantooda ku soo hoyay uguna horeeya banduulaha guutada saddexaad gaashaanla dhexe Cabdifataax Maqadin iyo gaashaanla dhexe Guuleed Maxamed Ismaaciil taliyaha ururka labaad ee guutada afraad. kulli goobo cadiyan baa goobihii macnaha ay iyadu kolka u soo talowday sida goobtii Hulul oo kale macnaha iyo goobtan Feerfeer u dhow Laasqurun tallaabo ku sharci ciidan ka qaaday cadow deegaanka inuu macnaha ku sii faahfaaho macnaha sii dhex qaado raboona ha suuhana waa looga hortay Al-Qushaash way jirtay macnaha Feerfeer meeshan ka tirsan Laasqurun cadowgii macnaha de Hulul oo kale baa kana way soo duuleen una way soo tallaabeen xogta waan helay adigu waan la socodsiiyey xogtooda maalinka macnaha dagaalku dhacay ka horbaan sii haynay xogta tafatiran buu macnaha saraakiisha ciidanku haysay iyo bulshadu guushuna waa ka go'naanshahan haddii ay ka go'naanin inaad guul gaadho gaari maysid balse laakiin ciidanku 100% iyo saraakiishii hogaaminaysay sidii ahayd bay guusha uga gaareen oo tallaabo qaadeen inta dhimatay meesha taale mooyeen inta baxday xitaa wax fayow macnaha caafimaad qab ku baxday meena jirin wax dhaawaca iyo wax soo kabala ka carran weey ilaa laankan dadka shacabka ha ee xoolaha raacay qori iyo nin meedan meel ku aragnay nin kabala baan meel ku aragnay in bay dhahaan macnaha reportiga la keenaa 100% sida ahayd baa macnaha tan looga tallaabo qaaday haddana loo sii wadaya macnaha mid la joojinayna ma aha waana mid aan u dhimanayno macnaha u dhaawacmayno naftanadana aan u horeyno inaan macnaha deegaanka naga difaacno Al-Shabaab oo kale lama oran karo waa Al-Shabaab waa cadowga Ilaahay kuwana ma aha macnaha cadowga ummadda kaliya ma waa cadowga Ilaahay marka 100% sida ahayd baan uga tallaabo qaadnay sida ahayd waan ugu taaganahay alaan eegadan hadii ay macnaha deegaanka noqoto iyo hadii ay xuduudda noqoto wax nolosha lagu qabtay inta dagaalkii Hulul ka dambaysa lafteeda intii farxadka ahayd bar baa la qabtay oo iyagoo nooliga gacanta lagu haya waa wax yar oo iska kooban taasi wax naflo macnaha ma aha eega deegaanka ku sii fidayaan Al-Shabaabna mid ciidanka deegaanka eega ugu horle ma hore bay soo arkeen way inay yaqaanaan tallaabo sharciyaan laga qaaday waana laga qaaday Hulul baan ka soo bilownay Hulul kulay istiraatiijiyada aan u qaadanay wuxuu ahaa istiraatiijiyada aan ku soo afjareynay cadow ku soo duulay deegaanka hawlgalkana waxa kaas ka soo bilaabmay kadib waxaan nimidnay liftigeeda waxa ka soo waxayadana waxaan ka qayb qaadanay ama regimentu ka qayb qaatay ama aan hawlgalkan waxay saraakiishan hogaaminaysan kamid ahaa dagaalkii labaad ee isaguna ka dhacay Feerfeer meesha la dhaho Laasqurun haddii aan warbixin ka siiyo meesha kulay ciidan meesha cadowgii soo galay suu haawan u afjarnay macni wax ka baxay hadda oran karnaa ama dib uu noqday ama waxay muujinaysaa guduhu soo galay ma jiro
balse laakiin cadowgii aagaa soo galay qalab badan waan ka furannay waxaan ka furannay macnii qoryo waaweyn baan ka qaadnay wataarar baan ka qaadnay GPS yaan ka qaadnay miinooyin baan ka qaadnay baskoolada xataa laftigeeda waan ka qaadnay istaraatiijiyadii ay damacsanaayeen way u suurtageli weyday laakiin waxaa inaan intaas oo guul ah gaadhno waxaa iska labanay anigu shacabka dowladda deegaanka Soomaalida oo isaguna iyo maamulka dowladda deegaanka Soomaalida oo ugu sareeya madaxweynaha deegaanka laftigiisu hawlgalka ay nugula jireen oo iyo hoob ay la garab taagnaayeen oo wax kasta oo waxay muujinaysaa moraaliyan laftigoodu waxay muujinaysaa qaarkoodna ay gidhaashka waxay muujinaysaa ay qaarkood ay la gelayeen taasaa keentay marnay guusha waxay muujinaysaa aan maanta gaadhnay balse waxaan u sheegayaa inay ku tusaale qaataan cadowga ku soo higsanaya inuu deegaanka Soomaalida ama soo galo ama waxyeelo soo gaarsiiso inuu alqushaas sidaan u galnay oo kale inaan u galayno inuu ogsoonaado ayaa loo baahan yahay geesta kale gaashan la dhexe maxamed cabdullaahi maxamuud madaxa saadka iyo sanada guutada saddexaad iyo cabdullaahi cabdi maxamed oo ah algama naftuurayaasha ciidanka xogga gaarka ah ee iyagu dhiigooda u hubeeyey inay deegaanka Soomaalida iyo bulshadooduba nabad ku noolaadaan oo iyaguna dhankooda ka hadlay ayaa sheegay wanaagga shacabka deegaanka waxtarkooda garab istaagooduna uu yahay sababaha ay guulaha laxaad kale ay ku gaareen waad aragtay imka adeega aniga ay daba yaala ama ay garab yaala haday biyo tahay haday raashin tahay haday caagadihii biyaha ee ciidanka isagijinadka la oran jiray tahay waxa weeye ayuhu shay aanay keenin ma jiro macnaha shacabkeenu guulahan dagaalka ka gaadhnay waxa sabab noogu ah garab istaaga bulshadayada deegaanku ay iska garab taagtay baashu meel ba gashay haday gashana dee magaranaysaa sidii liibers lagu yaqaan yaan talaabo sharci uga qaadnay sidii lagu yaqaan waxa meesha galo liibers meeshu galo way galan tahay dee hadal male anagu magaranaysaa dee dab hulci baan u dhex gelinaa baashi qarmuunada al-shabaab tahayna dee taariikh ma ka dhignay hubkeedii iyo waxay wadayna ay noo keentay waan ka tarakabnay gacanta ku jirta marka shacab fiican oo magaranaysaa in garab socodin ugu jira shacabkuna magaranaysaa waxyaalaha aan u baahanahay wayna taageerayeen magaranaysaa dee alqushash waxaan leeyahay talaabada aanu ka qaadnay ha ku cilmi qaadato haddii ay baqbaq iyo naqnaq deen weydo waxaan ugu tagaynaa meelaha ay joogtaan waxay geliyeen masaabir iyo baaya ku dhex jirta halkan marka taas waxay ku qarxinayaan baaruudi bay soo ururiyeen TNT bay ka dhigeen marka noocyo badan oo soo inay hayeen eegi qaar ay soo kafureen ay soo qarxiyeen baa yaala meeshii oo ilaa inta u dhigeen dadka dib ay wiilashana soo amkaneeyeen baa jirta kuwa kale oo dee aan u dhigna meel kale u jira laakiin tan naabana ahaan bay eegi u keeneen marka ilaa 15 mid oo cagadaha ay u sameeyeen baa yaa la soo qaaday oo meel dhigeen waxaan waa wada iyaga baagaas ay u samaysteen baaganu ku watay marka waxaan waa miino cagad buu dadku moodaya marka caagadahana ku soo gureen caagadan waxaana dee arudi baa ku jirta laakiin intan ilaa iyo 20 miino ay qarxin ilaa 30 miino ayay qarxinaysaa intan biyo la moodaya gacanta kama shaqeyso daakan waxaana biyo wataan baa moodaysaa in miino wataan ma moodaysaa ay gashan iyo 10 cagadood noocana kuwa kale far badan xaggaas lagu hayaa qaar way qarxiyeen oo iyaga qarxiyade kuwii kalena way hayaan xaggan way yaalaan hulul xaggan noocyada waxay ka yimaadeen nimankan xagga laas ku dhanbay ka yimaadeen iyo farjineer iyo baruudahan waa baruudihii aan cadawga ka soo qabanay tani waa miinooyinkay magaranaysaa ay rabeen inay ciidankeena magaranaysaa ku baabi'iyaan marka baruudan magaceeda waxaa la dhahaa TNT marka waa tii magaranaysaa bahashan lagu shubay iyo tii baruudaha xabadaha forjiidka ee tababarada lagu tababarto marka waxa weeyaan waa ilaa iyo dhowr iyo 10 xabo oo caagadood bay wateen iyo miinooyinkan oo fara badan marka miinooyinkan oo magaranaysaa ay soo kala daadaadinayna way jiraan oo magaranaysaa dibadaha aanu ku soo kala saarnay oo soo waxa weeyaan kala waxaynay marka tan wali ma aanan kala saarin oo waxaan u soo qaadnay si ciidanka aanu u tusno qaabkii waxa weeyaan ay u eegi lahaayeen iyo magaranaysaa qaabkii iska ilaalin lahaayeen maxay ku asnayd goobtii dagaalka magaranaysaa feerfeer
laasqur meesha la dhaho ee daraad ciidankeenu dagaalku galay iyo meelihii kale hulul marka labada goobood ku kala asnaayeen